أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها maantana waxaan u fadhinaa dufcaddii labaad oo ah maxadka Citizen International College waxaana maanta aan u fadhinaa xafladda iyadoo arday ka qalin jebinayso caafimaad ah wuxuu bixiyaa koorsooyin xagga caafimaadka ah departmentiyo laakiin maanta aan u fadhinaa ardayda ah qayb caafimaad ah qayb public speaking ah sida aad qof ama bulsho ama dad aad u hor istaagi lahayd guud ahaan ardayda maanta ka qalin jebisay maxadka Citizen oo aan u fadhino galabta oo ay tahay galab khamiis ah taariikhduna ay tahay 3 bisha 3 2022 waa arday 30 arday oo iskugu jirta xagga caafimaadka xagga luqadda iyo xagga public speaking ama fagaara ka hadalka ay u yaqaanaan waxaan leeyahay ardayda waan bogaadinayaa hambaliyaan leeyahay hambaliyo quruxda badan iyo madashan aadka quruxda badan ee qalinjibinta iyo farxadda ay ka muuqato mar labaad waxaan salaamayaa marti sharafta qaybaheeda kala duwan waalidiinta ardayda aan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh بعد السلام ما شاء الله aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan idinkala soo qayb galo Citizen xafladiini كل حفلتي كواد أن Citizen كسوق قبله بين قنصة أدم رنتي يقول فرحسنا هاي رنتي بهودان نوارنا هاي بعض هذا global يا بعض Citizen هذا معلمين تنقطة يا أرض هذا يدين حكستوا مركا وحنا لا هاي Citizen هذا يا آدم محسنتين قالن شمين تنقرح البلدان آدمان تأوفردان وحنا لا يا همبلي مركا كواد رنتي arday qalin jabisa oo waxa weeyaan waqti badan soo bixisay waalid uu ku soo tabcay macallimiin ku soo tabcaday waxa looga baahan yahay maalintii qalin jabiyaan wax badan baa looga fadhiyaa waxaan aragnaa in badan qalin jabino far badan waan aragnaa laakiin haddana midhaheeda lama arko ka gobol ahaan marka gobolkan cid uu sugaya waxa weeyaan waa dhalinyarada waa jiilka maanta soo kacaya marka jiilkeena cusub waxaan rabnaa aqoonta aad ka qalin jabiseen inaan ka midho dhalino oo aan isku darsano aqoon iyo adeegsiga ay marka aan lahayn marka arday waxaan leeyahay maanta wad qalin jabiseen laakiin hays oranina aqoontii waad dhameyseen waxa ka soo fuushan jaran kamid ah jarooyinkii waxbarashada marka waxa la idinka rabaa halka inaad ka sii ambaqaadaan oo qaybaha kala duwan qolka kasta qaybtii ka qalin jabisay ay halka ka sii wado aqoontii ay sii kordhiso haday noqoto qaybta caafimaadka qaybta public speaking ka iyo qaybta luqadaha waxaan leenahay hore u sii socda waan ku faraxsanahay runtii inaad maanta tirada inta le college Citizen soo saaro laba qodobka koowaad ah mahad celinayo maamulka iyo macallimiintii ardayda dugsiga dadaalkii ay geliyeen ee ah dhinaca abaabinta soo saaritaanka iyo haqabalka ardayda lagu aaminay marka waxaan leeyahay hambalyo midda labaad waa tuu maamulahayga sheegay maamul sayid xaflado badan waynu qabanaa laakiin ma aragno wax ka dambeeya waxaan rajaynayaa ardaydeedan Citizen inay la yimaadaan wax ka duwan ardayaashii hore wixii ay sameeyeen oo kale inta kadib walba dadaal bay ku xiran yihiin waxaan idin leeyahay dadaalka halka ka sii wada qolada caafimaadka ka qalin jabisay kolleejyada iyo jaamacadaha caafimaadka ka sii koriso ilaa ay ka gaadho heerka dhakhtarnimada ay ka gaadho qolada kale ee public speaking-ka iyo luqaduhuna iyaguna halkaa ka sii wadeen oo bulshada ha ugu gargaareen waxyaalahaas ay baranayaan iyo tacabka la gelinayo marka waxaan leeyahay dadaal baa idinka baahan yahay inta badan ardaydu ay ku mashquulaan mobilkaas weyn oo hadda noqday negative-ka koobaad noqday oo ardaydii wax akhriyi jirtay akhriskii meesha ka baxay chance yar haday ardayga mobilkaas ayuu galayaa mobilkaasi waxyaalo badan baa laga helaa
negativena uu leeyahay positivena uu leeyahay laakiin waxaad moodaa xaggii negativeka uun inaynu u badinay waxaa lagaa rabaa inaad cilmi baadhis u wadatid oo mawduuca aad markaa dhiganaysid aad sii kororsatid oo aad intaad google-ka gelisid ama youtube-ka gelisid ciwaanka casharka aad dhiganaysid aad halkaa ka sii akhrisid macallimiinta sharafta badan maxay ahayd ardadayna maxay ahayd soo saartay maxay ahayd iyo waalidka maxay ahayd intaan ku soo tabcay oo la maxay ahayd la maal iyo maxay ahayd nafban la gudub taagnaa marka keenaya in maxay ahayd aan ilaahay tacabkeena xumayn ilaahay maxay ahayd ardaydeena maxay ahayd guul iyo gobonnimada maxay ahayd ilaahay ana la garab istaago aqoonta caynba caynka bulshadu wada cugatay dharaaraha ruux waliba cindigiisa geliyo sitiisan baa cawaysyada inuu kuu cugto diyaaree caafimaadku ka kow yahay wada camira bulsho yahay barayaal caalimiino kaaha qabtiraya cilmigee wada camira bulsho yahay marka labaad waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo aan dhiiri geliyo barayaashii kala duwanaa ee idiin baray ee idiin maxay hayto idiin hibeeyey inaad noqotaan maanta dad qalin jabinaya oo waxyaalo badan aad higsanayseen ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sabab idinka dhigay inaad barataan runtii waxaa weeye macallimiinta waxaa leeyahay waxaad bulshadiinna ugu jirtaan kaalin muhiima waxaana rajaynayaa jiilba jiilkan ama ardayda ka dambaysana inaad soo saartaan oo aad halkaa ka wadaan dadaalkii iyo maxay ahayd hawshii aad bulshadiinna u hayseen ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka abaalmariyo waxaana idin leeyahay insha allahu tacaala aynu dadaalno waxa weeye waxaynu nahay ubixi dalka baynu nahay hogaamiyayaashii ummadda maanta waa idinka dhakhtarradii baa idinku jira injineeradii baa idinku jira barayaashii kala duwanaa baa inoogu jira waxa weeyaan nin waliba waxa weeyaan kaalintiisa iyo doorkiisa inuu ka ciyaaro waxqabadka bulshada insha allahu tacaala wixii aan saxay alla agtii wixii aan khaldayna waxa weeyaan naf iyo shaydaan bay u sugnaadeen wallahu subxaanahu wa tacaala aclam وسبحان الله القدوس وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هلايو إلهي سبحانه وتعالى كبقى عبسده ودبت إلهي سبحانه وتعالى وليهي وهي عبسيها قفك بنانك وعبسده وكلا دوانان كران وحيلا فربضان بقفك بنانك كعبسده بهالها يهابر الضغاق وكعبسده عدو وكعبسان كران لكن الله سبحانه وتعالى وحليهي عبسي سواح ويكوها بون وحق ليهي من كاتاين لقى عبسده إنه مسلمين أنا اسكت لمن waayo waxaa damaysa xisaab ayaa damaysa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala laga baqo oo ilaahay ka baqa meel kasta ay joogtaan meel kasta joogtaan waxa noqonaysa hadaa faraxsan tahay hadaa dhibaataysan tahay xilli kasta ilaahay subhanahu wa ta'ala qof binaankan oo ka baqo haddii khalad ka dhacana inuu raaciyo xasana iyo wanaag inuu ka dabageeyo tamhuha iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam leeyahay baabiinasa waana saasoo gefka hadduu qof ka dhaco wanaag ka dabageeyo wanaaggiina wuxuu noqonayaa toobadkeenkii iyo wixii la halmaalu noqonayaa dee way ka baabi'inaysaa wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadkana si wacan ula dhaqan aad la nooshahayna si wacan ula dhaqan ayaa rasuul sal slam leeyahay dabcan waxa weeyaan likulli maqaamin lahu maqaal goobta lagu soo waxay leedahay hab loo hadlay leedahay goobta waxaan filayaa waa goob cilmiyeed iyo meel waxa weeyaan cilmi looga qalin jebinayo oo lagu bartay علمي وحوي قيمة بدن بني آدم وحويان وكرصة ويان إله سبحانه وتعالى وحليه هاي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ميسميين قف وحيقانا وحجرنا يقفنا وحبق جرنا يصو وحبق أقول ميسميين طبعا مصينا وحويان جوابته ولا نقتجي وحويان مصينا أي مصينا وحي لاقف السوان معها سادراد علمي وح قيمة بدن وكقيمة بدن مالك وحيلا بدن بناء ويكون دالان كقيمة بدن ويان حكم فربنا يا لجس جوريا وحيان دتك سلف كها علي بن طالب حليه هاي العلم خير من المال علمي ساك خير بدن بير مالك وحير العلم يحرسك علمي وساك إلى لنا إياه ما كعلم برتيد وقون قف يشوا قون تساق قف إلى لنا آخر ذي سيوح لها المال سير لنا وحيان لكن سمالك أنت تحرسه أضاء إلى لنا إياه أو ميل أضاء قف ليه أو وحيان أنت إلى لنا إياه أو حسابنا إياه أو نفتك قمنا إياه وحكل ليها علم طالب لجس جوريين يريه اثنان لا يشبعان وحيان طالب العلم وطالب المال قفك وحيان علمي قبرتها مدرجه
haddaa istiraahdo waa dheeritay cilmiga ka dheeritay waxaa la dhahaa qof marsu dhaho maanta alil aqoon baad leedahay aqoon baad baratay oo meel fiican bay kuu marsaa ayaa dhaha qofkaas maanta dhabadii jahliga ayuu wax weeyaan saaray cagta saaray maanta aamino wax weeyaan maanta aqoon lahayn oo aqoon inuu korso u baahan yahayna maantaas dhabadii cilmiga wax weeyaan saaray cagta saaray dhahaan saadiraad wax loo baahan yahay marka in cilmiga lagu dadaalo xikmada waxa kamid ah caalim daal laga soo guriyo inuu yiri laysa al-yatimu alladhi faqada walidahu ma ha qofka agoonka ah qofka leeyso waalid waaday waxa weeye in al-yatima yatimu al-ilmi wal-adabi laakiin si qofka agoonka ah waa qofka waayay aqoontii iyo cilmi aan haysan oo agoonka ah oo cirka ah iyo aadaabtii iyo akhlaaqiyadkii waxaan filayaa la soo gaabiyaa la yiri waxaan leenahay lagu dadaalo gaar ahaan cilmiga halkan laga qalin jibinayo oo aan fahmay inuu yahay culum fara badan oo kala duwan caafimaad baa ku jira luqad baa ku jira habka bini'aadamka loola hadlo loo fahamsiiyo wax ayaa ku jirta marka culumtaas oo dhan waa loo baahan yahay gaar ahaan cilmiga caafimaadka iyo luqadaba inta u baahanahay caafimaadka waa ogtahay deegaankeenan iyo gobolkeenani waxaa ku badan dhibaatada iyo waxa weeyaan mushkilooyinka xagga dagaalada iyo wixii ku halmaala ku badan saadiraad inaan baranno waxa weeyaan qaybsi degdeg ah oo qof hadaa dhaawac u timaadid iyo wixii la halmaala inaad u adeegi kartid ayaa loo baahan yahay waliba ardadaas caafimaadka qalin waxa kula talin lahaa inay waxyaalaha yar oo magacaas qofka loogu adeegi karo waxa gargaarka degdega ah in guryahooda u yaalo si waxyaalo ku dhiig joojinayo irbadaha iyo waxyaalaha ku xidhayo magacaas loo isticmaalayo caafimaadka inuu hadii xaafadii lagu dakhraamo ama magacaas la dhaho doctor Hiblaayo ama doctor Hebel halkan jooga oo ina caawin doonaan la dhaho xilliga hore dawladda aan haysanay dib baan ka burburnay xilliga qof kasta oo wax wax baranaya waa lagu tababari jiray inuu wax ugu yaraan inta ugu horeyso qofka bini'aadamka markuu u yimaado oo mashil galay ama wuxuu ku dhaceen inuu u qabto oo wax dhiig joojin ku sameeyo waa la bari jiray laakiin burburka dabadeed wax dadku waxay noqdeen dad aan waxaas aqoon inta qof dhakhtar loo siido dhakhtarka way loo siido ayuu sii dhiig baxaya qofka sii dhimanayaaba marka waxaan leeyahay culumta lagu dadaalo gaar ahaan cilmiga caafimaadka waxay ka qalin jibinaysaan iyo ka ingiriiskaaba waxa waa loo baahan yahay salaamu calaykum